Ramadaan Mubaarak daawadayaal. Sanadkii 80-yadii bartamaha magaalada Raqqa ee dalka Suuriya waxaa jiray xaafad la oran jiray Al-Sakhani. Xaafadaas waxaa ku noolaa nin ka ganacsan jiray khudaar wuxuuna ku iibin jiray suuqa la yiraahdo Suuqa Al-Haal. Suuqa Al-Haal waa suuq qadiimi ah oo taariikhi ah, magaciisuna asal ahaan wuxuu ka yimid suuq ku yaala Baariis, waxaana la mid ah suuqyo badan oo ku yaala dalal kale iyo magaalooyin kale sida magaaladan Raqqa, Xalab, Dimashq iyo xitaa dalka Turkiga. Waa suuqyada lagu iibiyo khudaarta iyo miraha. Ninkan wuxuu ahaa nin ganacsade ah isla markaana iibin jiray khudaar. Waxaa jiray tuug si joogto ah ula socon jiray ganacsatada suuqa ku iibisa badeecadaha. Tuugan wuxuu fiirin jiray ganacsadaha maalintaas lacag badan sameeya, gaar ahaan marka uu iibiyo xirmooyin badan oo badeeco ah oo uu helo lacag badan. Markaas ayuu dabageli jiray si uu uga xado lacagta. Indhaha tuuga markaan waxay ku dhaceen ninkan oo la oran jiray Axmed. Maalintaas Axmed wuxuu iibiyey khudaar iyo miro badan, wuxuuna helay lacag aad u badan. Lacagtii ayuu ku duuduubay bacyar, kadibna wuxuu geliyey jaakad uu xirnaa. Markii uu suuqa xirmay, Axmed wuxuu xiray goobtiisii ganacsi wuxuuna aaday gurigiisa oo ku yaalay xaafad la yiraahdo Al-Suur. Tuugiina waa uu daba socdaa, balse Axmed ma oga in la daba socdo. Tuugu hadda wuu ogaaday halka uu ku yaalo guriga Axmed, wuxuuna og yahay in lacag badan ay jaakadda ku jirto. Wakhtigaas dadka badankoodu bangiyada ma aadi jirin, waxay lacagta hayn jireen ilaa maalinta xigta si ay badeeco kale ugu soo iibsadaan. Lacag badana ma sii hayn jirin, waxay u beddeli jireen badeeco sida ugu dhaqsaha badan. Tuugiina wuu yaqaanay nidaamkaas, wuxuu go'aansaday in uu isla habeenkaas qaato lacagtaas. Gurigu wuxuu ahaa guri caadi ah oo dadweyne, derbigiisuna dhoobo ayuu ka samaysnaa, wuuna gaabnaa. Sidaas darteed tuugu si fudud ayuu uga boodi karay. Wuxuu sugay tuuga ilaa dadku ka seexdaan, wuxuuna watay bastoolad. Markii jawiga magaalada degay dadkana ay seexdeen ayuu wuxuu ka booday derbiga. Si tartiib ah ayuu guriga u galay ilaa uu gaaray qolka jiifka. Markuu albaabka si tartiib ah u furay, wuxuu arkay 2 sariirood oo yaryar. Midi waxaa ku jiifay Axmed, tan kalena xaaskiisa. Gurigu mugdi ayuu ahaa, jawigana aad buu u daganaa. Tuugu wuxuu watay toosh yar oo gacan qabsi ah, waa uu ku ifiyey si uu hubiyo in Axmed uu hurdo iyo in kale. Wuxuu bilaabay inuu raadiyo jaakadda. Wuxuu arkay in jaakadda ku jirto barkinta uu barkan yahay Axmed hoosteeda, taasoo ku tusinaysa in Axmed lacagta la cabsanayay. Tuugii si tartiib ah ayuu ugu dhowaaday sariirta Axmed jiifay, wuxuuna isku dayay inuu jaakadda ka soo jiido barkinta hoosteeda. Axmed ayaa ku toosay jiiditaanka la jiiday jaakada. Bal qiyaas adigoo si nabad ah u hurda, xaaskaaguna dhinacaaga jiifto, habeen saqdhaxa ay tahay. Kadibna markaad indhaha kala furtay aad aragto qof madaxaaga korkiisa taagan oo bastoolad kugu haya, maxaad dareemi lahayd? Axmed aad ayuu u argagaxay, wuu naxay, xitaa wax ficil ah ma samayn karin. Go'ii sariirta ayuu wejiga ku dabooshay, wuxuuna ku yidhi tuugii, fadlan qaado waxaad rabto, laakiin ha i dilin. Tuugu wax naxariis ma lahayn, wuxuu 2 xabadood kaga dhuftay madaxa, isagoo ka toogtay maraduu isku daboolayay dusheeda. Xaaskii ayaa waxay ku toostay dhawaaqa rasaasta, waxay aragtay nin taagan korkeeda iyo ninkeeda oo meyd ah oo la toogtay. Argagax awgiis kelmad waa oran weyday, ma aysan qaylinin, waxay ahayd mid uur leh, biliheedii ugu dambeeyeyna ku jirta. Tuugu bastooladii ayuu ku jeediyey, wuxuuna ku yidhi haddii aad qayliso waan ku dili doonaa. Iyaduna ma dhaqaaqin, mana hadlin oo amarka waa qaadatay. Tuugu wuxuu qaatay jaakaddii wuxuuna uga baxay guriga sidii uu ku soo galay, isagoo ka booday derbiga. Markuu baxsaday kadib, xaaskii Axmed waxay bilowday in ay qayliso, waxayna u baxday bannaanka iyadoo ku qaylinaysa in ninkeeda la dilay. Dadkii xaafadda ayaa qayladeedii isugu soo baxay, gurigii ayay galeen, waxay arkeen ninkii Axmed ahaa oo dhiig dhex yaalla, isla markaana geeriyooday. Booliiska ayaa loo wacay, xaafaddii oo dhanna argagax ayaa isqabsaday. Qofna ma ogeyn cidda dishay Axmed, laakiin yaabka ugu weyn wuxuu ahaa in qofkii ugu horreeyey ee lagu tuhmay dembiga uu ahaa xaaskii Axmed. Booliisku waxay ku yidhaahdeen xaaskii, adiga ayaa ka dambaysa dilkan. Iyadu way qaylisay oo waxay ku celcelisay, suurtagal ma aha, suurtagal ma aha. Marka la eego hadallada dadka deriska oo ahaa dadkii ay u qaylisay si ay u badbaadiyaan, waxay sheegeen in markii ay u imaadeen uusan qof kale guriga ku jirin. Laakiin iyadu markii hore waxay sheegtay in ay argagaxday oo kelimad ay oran weyday, ayna qaylisay kadib markii dambiiluhu baxsaday. Booliisku waxay ku dhaheen, sheekadan ma aha mid gelayso maskaxda. Waxay ku eedeeyeen in qofkii guriga soo galay uu ahaa mid ay xiriir la lahayd, ama uu ahaa mid kala howlgalayay dembiga, ama in ay rabtay inay ka takhalusto ninkeeda oo ay qorshaysay wax walba. Miskiintii way dhaaratay, way ku celcelisay in ay waxba ka ogeyn arrintan, laakiin cidna ma aaminin. Waxay ku cadaadiyeen inay qirato, iyaduna waxay ku adkaysatay in arrinkan aysan waxba kala socon. Waxayna ku tiri, wallaahi ma aqaan, qofkan si kedis ah ayuu noo soo galay, markaan arkayna waan argagaxay, juuqna waan dhihi waayey. Waxaan ahaa qof uur leh, xaaladayduna ma fiicnayn, xataa ma awoodin inaan istaago. Waxay ku yidhaahdeen hadalkaas ma ahan mid maskaxdeena galayo. Ugu dambayn xabsi ayay dhigeen, waxay ku hayeen baaritaan joogto ah, su'aalo iyo cadaadis badan, jirdil iyo cadaadis joogto ah. Sidaas awgeed waxay ku sigatay in ay geeriyooto. Sanad iyo bar ayay xabsiga ku jirtay. Intii ay xabsiga ku jirtay ayay ku umushay xabsiga gudihiisa, waxayna dhashay wiil. Markii ay ilmaha dhashay, maamulka xabsiga ayaa waxay dhaheen, maxaa naga galay ilmahan? Ilmuhu dembi ma gelin. Sidee xabsi ula wadaagi karaa hooyadii?
waxay ku dhaheen qoyska marxuumka ha ka qaado ilmaha, laakiin iyadu way diiday arrintaa. waxay tidhi, sidee layga qaadi karaa? weli naaskayga ayuu nuugayaa oo weli wuu ii baahan yahay. arrintu way adkaatay. qareenno iyo dad xuquuqul insaanka ka shaqeeya ayaa soo farageliyey, waxayna codsadeen in ilmaha loo oggolaado inuu la joogo hooyadii ilaa kiiska laga dhammaynayo, maadaama aan weli lagu xukumin wax dembi ah, dembiilihii dhabta ahaana aan la qaban. dadaal badan kadib waxaa loo oggolaaday ilmaha inuu la joogo hooyadii gudaha xabsiga. si kastaba ha ahaatee, mar kasta waxaa loogu yeeri jiray baaritaan, waxayna ku odhan jireen, qiro, yuu ahaa ninkaasi? maxaad u difaacaysaa? adigu maxaad culayska isu saaraysa? iyadu mar kasta waxay ku dhaaran jirtay inay waxba ka ogeyn. dhanka kale, qoyska ninka dhintay waxay dalbanayeen in la dilo, qoyskeeduna way ka fogaadeen oo way ka tageen. dadkii oo dhan waxay ku hadleen erayo xunxun, waxayna ku eedeeyeen inay nin kale keentay si uu u dilo ninkeeda. maadaama uu Axmed ahaa nin wanaagsan oo sumcad ku dhex leh dadka, islamarkaana dadka oo dhan ay jecel yihiin, qof walba arrinkan wuu cambaareeyey. laakiin dembiilihii dhabta ahaa xaggee buu joogay? isagu weli wuu sii waday dembiyadiisa. mararka qaar guryo ayuu jabsan jiray oo wax ka qaadan jiray, mararka qaar dadka wuu garaaci jiray, mararka qaarna wuu dili jiray, laakiin weli cidna ma aqoonsan. maalmo iyo sannado badan ayuu howlihiisa watay ilaa uu gaaray magaalo kale oo la yidhaahdo Hasaka. halkaas waxaa ku yaalay suuq dahab. tuugu wuxuu isha ku haayay mid ka mid ah dukaamada dahabka. wuxuu ogaa in qaar ka mid ah ganacsatada ay habeenkii dahabka u qaadaan guryahooda si ay u ilaashadaan, subaxiina ay ku soo celiyaan dukaamankooda. qaar kalena dukaamadooda si adag ayay u adkeeyeen oo bir iyo difaac adag ayay ku wareejiyeen, si aan si fudud loo jebin karin. tuugu wuu ogaa in dukaankaas si toos ah loo jebin karin, sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu marka hore galo guriga ganacsadaha si uu uga soo qaato furayaasha dukaanka. wuxuu sugay ilaa habeenkii dambe, wuxuuna si qarsoodi ah u galay guriga. wuxuu ka helay furayaasha dharkii ninka oo hurda, wuuna ka qaatay isaga oo aan la dareemin. kadib wuxuu aaday dukaanka, wuu furtay, wuxuuna qaatay dahab badan iyo alaabo qaali ah. maalinkii xigayna wuxuu ka cararay magaalada. tuugu markii uu ka baxay magaalada Hasaka, wuxuu kiraystay taksi gaar ah oo isaga keligii qaadayo, wuxuuna u jihaystay dhanka magaalada Raqqa oo ah halkii uu Axmed ku soo dilay. markii uu magaalada Raqqa gaaray, wuxuu haddana qaatay taksi kale, wuxuuna u sheegay darawalka inuu si degdeg ah ugu qaado magaalada Xalab. wuxuu Xalab joogay dhowr maalmood si uu u qiimeeyo jawiga ama xaaladda magaalada. hadda wuxuu haystaa dahab qaali ah oo aad u badan. wuxuu ogaa in magaalada Xalab ay ku yaalaan dukaamo waaweyn oo dahabka iibsada. wuxuu galay mid ka mid ah dukaamadaas, wuxuuna ku yidhi milkiilaha, waxaan hayaa dahab aan rabay inaan iibiyo, ma iibsanaysaa? ganacsadihii wuxuu ku yidhi, haa, waan iibsanayaa. tuugu ma soo qaadin dhammaan dahabkii, wuxuu keenay xogaa yar si uu tijaabiyo. ganacsadihii wuxuu weydiiyey, xaggee ka keentay dahabkan? tuuggii wuxuu yidhi, waa dahabkii xaaskayga iyo walaalahay, waxaan u baahanahay lacag. ganacsadihii wuu ka iibsaday. markii uu ka iibsaday dhammaan intuu waday, tuuggii ayaa wuxuu ku yidhi ganacsadihii, waxaan kaloo hayaa dahab kale oo qaraabada leedahay, waxaan doonaynaa inaan ku maalgelinno mashruuc, marka waxaan ururinay dahabkii dumarka qoyska. ganacsadihii wuxuu ku yidhi, haddii aad keento waan iibsanayaa. tuuggii mar kale ayuu keenay xogaa kale oo yar, ganacsadihiina wuu ka iibsaday. markaas tuuggu wuxuu ku yidhi, weli wax baa ii haray. ganacsadihii ayaa ku yidhi, soo qaad, xitaa haddii aad keento dahabka magaalada oo dhan, waan iibsanayaa. waxaan hayaa lacag caddaan ah, aniga iyo walaalkay waxaan leenahay dukaamo kale, wax dhib ah ma leh, waan kaa iibsananaa. laakiin markan ganacsaduhu wuxuu bilaabay in uu ka shakiyo ninkan, sababtana waxay tahay wuxuu arkay in tuuggu qiimo kasta oo lagu dhaha uu ku oggolaanayo, uuna si degdeg ah u iibinayo xogaa kala duwan. wuxuu dareemay in wax khaldan yihiin. markii tuuggu ballan qaaday inuu keeni doono xogaa weyn oo dahab ah, markan ganacsaduhu wuxuu si qarsoodi ah ula xidhiiray ciidanka ammaanka. wuxuu ku yidhi, haddii ninkani mar kale imaado, waan idin soo wargelinayaa. tuuggii wuu soo laabtay isagoo wata xogaa dahab ah oo aad u badan. ganacsaduhu wuxuu u muujiyey inuu oggol yahay, wuxuuna ku yidhi, heshiisku wuu dhacay, laakiin lacagta oo dhan hadda ma haayo. qayb ka mid ah waxay taallaa dukaanka walaalkay ee inoo dhow, inta igu sug, waxaan doonayaa lacagta dhiman. markii uu baxay, isla markiiba wuxuu wacay saldhigga booliiska. boolisku si degdeg ah ayay u imaadeen, waxayna qabteen tuuggii. dhammaan dahabkii iyo alaabtii qaaliga ahayd waa laga qaaday. markii la waraystay, bilowgii wuu diiday in uu wax sheego, laakiin cadaadis badan kadib wuu qirtay. wuxuu qirtay xatooyooyin badan, xataa wuxuu qirtay kuwa ay boolisku horay uga warqabin. wuxuu sheegay inuu isagu dhacay dukaanka dahabka ee magaalada Hasaka, wuxuuna tilmaamay gurigii uu ku noolaa. markii la baaray gurigiisa, waxaa laga helay alaabo kale oo uu soo xaday. markii dhibanayaasha la weydiiyey, qaar badan ayaa xaqiijiyeen in hantidooda laga xaday maalmo gaar ah, taasoo ku caddaysay dembiyadiisa. laakiin markii milkiilihii dukaanka dahabka ee magaalada Hasaka loo keenay si loo aqoonsado alaabtiisa, wuxuu keenay dhammaan waraaqihii iyo caddaymihii sheegayay in dahabka uu leeyahay asaga. iyagoo hubinaya alaabtii, waxaa jiray hal shay oo ka mid ah dahabka oo uusan aqoonsan ninkii dukaanka laga soo dhacay. wuxuuna yidhi, tani ma aha mid ka mid ah alaabtayda. waa naqshad duug ah oo xalabi ah, waan aqaanaa noocaan, laakiin anigu ma lihi. waxaa la weydiiyey tuuggii,
waxaana lagu yidhi xaggee ka keentay tan yaa iska leh markii hore wuu aamusay wuu fikiray wuxuu ogaa haddii uu sheego halka uu ka keenay shaygan yar in uu ka dambaynayo dembi dil ah wuxuu isku dayey in uu meermeeriyo markii cadaadis lagu saaray ugu dambayn wuu sheegay halkuu ka keenay wuxuu yidhi waxaan galay guri si aan u xaddo ninka guriga degan laakiin markii uu igu soo toosay oo uu isoo wajahay waan dilay oo waan toogtay markii xaaskiisu soo jeesatay bastoolada ayaan ku qabtay si aysan u qaylin waxay xirnayd silsiladan dhego iyo faraanti waxaan ka siibtay silsiladii qoorteeda sidoo kale faraantigii iyo dhegihii ayaan ka qaatay wuxuu sheegay in shaygaasi uu qariyey muddo dheer uuna go'aansaday inuu ku daro dahabkii kale si uu mar qura u wada iibiyo sidaas ayaa kiiska dilkii axmed dib loogu furay haweenaydii xabsiga ku jirtay muddo dheer ayaa loo yeeray waxaana la tusiyey dahabkii markii la tusay silsiladii dahabka ahayd waxay tidhi tani waa tii ninkaygu ii soo iibiyey hadiyad ahaan igu keenay guurkeenna waraaqdeedana weli waan hayaa markii la keenay waraaqdii waxay caddaysay in dahabku iyada lahayd waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyey inay gebi ahaanba aan wax lug ah ku lahayn dilka axmed haweenaydii waa la sii daayey dadkii oo dhan way raalli geliyeen gaar ahaan qoyska axmed oo horay ugu eedeeyey dilka wiilkooda laakiin magdhow ma aysan helin waxaa keliya lagu yidhi mahad ilaahay baa iska leh maanta in la helay dembiilihii oo uu qirtay dilka axmed ugu dambayn runta ayaa soo baxday oo cadaaladii ayaa timid inkastoo ay soo daahday halkaani waa dhammaadka qisadeenna nabadgelyo